walaasheen Xaliima Sacdiya waxaan leeyahay walaasheen aad u mahadsantahay hal marna in sacabka loo tumo ayaa codsanaya aad ayaa ugu mahadsantahay dadaalka habeen iyo maalinba ku bixiyaysid ilmahaas yaryar ee quruxda badan sidii aad u barbaarin lahayd waxaan rabaa inaan u hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waliba gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan dhahayo taariikhdan xurriyadda ah dhalinyaro haddaan nahay waxaan ku leeyahay kaalin weyn dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambaliyo waxaan si gaar ugu hambaliyahayaa wiilashaas yaryar ee banoonigii soo ciyaaray ee barnaamijkii kubadda cagta soo ciyaaray waxaan leeyahay waliba gaar ahaan kooxdii guuleysatay oo kooxda 26 Juun ah waxaan idin leeyahay hambaliyo intaas kadib waxaan rabaa dhalinyaro in aan wax yar aan ka taabto maalmaha xurriyadda dabcan waa kowda luulyo iyo 26 Juun waa maalintii dhulkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay laga taagay calan Soomaaliyeed oo xor ah wixii ahayd Hargeysa kowda luulyo waa maalintii koonfurta laga taagay waana maalintii ay waqooyi iyo koonfur ay midoobeen sidoo kale 27 wixii ahayd walaalaheen Djibouti maalintii ay qaateen midnimada Soomaaliyeed sidoo kale to maalinta kowda luulyo ayaa astaan u ah maxaa yeelay waa maalintii walaalaheen reer waqooyi ay imaadeen magaalada Muqdisho ayagoo calankoodii iyo dawladnimadoodii wataan oo ay doorteen midnimada intaas kadib waa iska soo koobaya waxaan rabaa hal qodob inaan dul istaago qodobkaas oo ah mas'uuliyadda jiilka cusub jiilkeena Soomaaliyeed maanta joogo dhalinyaradena maanta joogto maxaa mas'uuliyad ah oo naga saaran dalkeena number 1 waxa mas'uuliyad naga saaran tahay ilaalinta taariikhdeena iyo sidoo kale to halyeeyadeena taariikhdooda dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay mar walba ay xasuusnaadaan maalmahan xurriyadana xafladaha waxa loo qabahayo waa dhalinyarta in la jiheeyo oo taariikhda iyo midkan halyeeyadii wadankan u soo halgamay la xasuusiyo sidoo kale dhalinyaro ilaalinta sharciga waa arin lagama maarmaan ah sidoo kale akhlaaqda wanaagsan waa arin lagama maarmaan ah waxaan rabaa anigoo munaasabadan uga faa'iideysahay inaan qodob aan dul istaago qodobkaasna waxa waaye bariyahan dambe dhanka iyo social media waxa muuqanayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxyaabo qaab daran soo gudbinayo sida in gabar lagu xad gudbo kaleeto sida ka dhacday magaalada Muqdisho bariyihii la soo dhaafay oo ay dhalinyartii ay ku faanayaan xad gudubyada ay geysanayaan arintaas dhalinyaro waxay nagu tahay foolxumo anukoo ah dhalinyarta Soomaaliyeed oo nagala rabay inaan noqono kuwii wadanka u bixiisi noqon lahay oo dalkan horumarka gaarsiin lahay inaan maanta ku faano TikTok-gan aan ku faanay anukoo akhlaaq xumo soo gudbihayno wax laga fiican yahay way waxaan ku soo gunaanadayaa baaq nabadeed aan dhahayo dhalinyarta Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan ka codsanaynaa madaxda dalkeena in nabadda noo ilaaliyo ayadoo maalmaha xurriyadda la fiirinayo waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan dhalinyarta Soomaaliyeed aan dhaho aan ku dadaalno dalkeena dartiis inaan wax u barano dalkeena inaan